kulan wacan saaxiibayaal halkan waa xulashada wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaana waxaa kamid ah Jubbaland oo sheegtay in filla Soomaaliya ay diyaarinayso ciidan iyada lagu burburinayo dagaalka cusub ee Itoobiya iyo Jubbaland ka dhex qarxay iyo Sayid Aadan iyo Axmed Madoobe oo qar kala taagan wasiir Cawad oo gaashaan ku duruuray hadalkii Monica Juma runtan u sheegay Kenya iyo shacabkeeda farmaajo tilmaamay Uhuru kuna sheegay inaan kibir badnayn oo dhulka isu dhiga farmaajo waxaa loogu baaqay in shacabku hor yimaado iyo banaanbaxyo laga cabsanayo waxaa kaloo sidoo kale daawan doontaan nin hubeysan oo weeraray iskuul ku yaala dalka Mareykanka qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan u diyaar garooba saaxiibayaal markale kula wacan fadlan haddii aad inagu cusub tahay subscribe saar ku dhufo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha kuwaad markaynu wararkeena baahino aynu ku bilaabnay Jubbaland ayaa sheegtay in filla Soomaaliya ay diyaarinayso ciidan iyada lagu burburinayo Jubbaland ayaa waxay shaaca ka qaaday in dawladda Soomaaliya ay diyaarinayso ciidan ay ugu talagashay in iyada lagu burburiyo iyadoona tallaabadaas ku sheegtay mid nasiib darro ah golaha wasiirada Jubbaland oo uu shir gudoominayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe kulan ku yeeshay Kismaayo waxay kaga arinsadeen xaaladda ku soo korortay gobolka Gado oo Jubbaland ay sheegtay in dawladda Soomaaliya ay ku diyaarinayso ciidan ay ugu talagashay inay ku burburiso adeegyada halkaas ka socota madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo shir jiraayid ku qabtay Kismaayo kadib markii kulankaas la soo gabagabeeyay ayaa ka hadlay wararka ku aadan ciidamada la sheegay in dawladda ay u adeegsanayso burburinta Jubbaland madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa waxa uu bidaamiyay in ciidamada militariga Itoobiya iyo nabad sugidda Soomaaliya ee gobolka Gado ka wadaan arrin ka baxsan sharciga sidoo yiri madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa wuxuu nasiib darro ku sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu burburinta Jubbaland u adeegsado ciidamo Itoobiyaan ah Maxamuud Sayid Aadan ayaa shirkiisa jiraayid ee uu ku qabtay Kismaayo waxa uu ku xusay in cabasho arintaas ku aadan ay u gudbin doonaan dawladda Itoobiya iyo beesha caalamka si ay ugu muujiyaan burburinta maamulka Jubbaland ee dawladda ay ka bilaabayso gobolka Gado eedeymahan ka soo yeeray maamulka Jubbaland ayaana waxaan jirin wax war oo ay ka soo saartay dawladda Soomaaliya waxayna ku soo aadaysaa xilli madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ay heshiis ku kala saxiixdeen Nairobi muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo jiitamay khilaaf xooggan u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland kaasoo ka dhashay doorasho natiijadeeda lagu murmay oo mar saddexaad lagu soo doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland dawlad goboleedka Jubbaland waxa ay markan tilmaamaysaa inay go'doon ugu jirto dawladda dhexe Itoobiya oo isgarabsanaya wasiirada Jubbaland waxay tilmaameen saameynta ugu badan ee dawladda ka soo gaaraysa ay kaga daran tahay mid kaga imaanaysa ciidamada dawladda Itoobiya ee ku sugan deegaanada Jubbaland iyadoo arrintaas ay jirto warar hoose ayaa tibaaxaya in dagaal iyo xurguf ay kala dhaxayso Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa koowaad inkastoo warbaahintu la hadlay Maxamuud Sayid Aadan kana warbixiyay kulanka golaha wasiirada haddana waxaa la tilmaamayaa in madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Sayid Aadan markan heshiisyo u dhaxmarayo si qarsoodi ah Axmed Madoobe heshiiskaas aanu goobjoog ka ahayn waxa uu sheegay inay xeelad iyo awood ay ku soo furan doonaan Cabdirashiid Janan Axmed Madoobe balse madaxweyne ku-xigeenka koowaad waxaa la tilmaamayaa inuu doonayo inuu Muqdisho yimaado oo waan uu kala dhaxgalo isagii Axmed Madoobe balse wararkaas ayuu Axmed Madoobe diidan yahay waxaana uu tilmaamayaa in Sayid Aadan haddii Muqdisho uu aado ay ku dhici doonto tii ku dhacday Cabdirashiid Janan sidoo kalena Sayid Aadan laga yaabo in la soo tashkiiliyo oo dawladda lacag ay soo siiso sida daraadeedna mucaarad uu ku noqdo waxaa la rumaysan yahay in magacaabistiisii ugu horeeyay Cali Masaar kadib Axmed Madoobe ay ahayd inuu magacaabay dibna u magacaabay madaxweyne ku-xigeenadiisa lagu dheeray Sayid Aadan oo saaxiib dhow Axmed Madoobe yihiin sidoo kalena waxyaabaha Axmed Madoobe uu ku taageero kamid ah in ciidamo badan oo gobolka Gado jooga uu taliyo ninkan madaxweyne ku-xigeenka koowaadka Jubbaland ayaa hadda la tilmaamayaa in xurgufay soo kala dhaxgashay ciidanka ka baxay Gado ayay tahay saameynta ugu badan ee ka dhax abuurtay labada dhinac inay iskhilaafaan maadaama ciidamadaas la tilmaamayo inay ku heebiyeen Sayid Aadan Axmed Madoobe uu diray inuu soo xaliyo balse Sayid Aadan uu diiday oo uu ku tilmaamay ciidamadaas ku aag badasho ay ahayn ciidamo Jubbaland ka goostay ciidamo ka tirsan ku Jubbaland ayaa waxay ka tageen baar dheere ayagoo aaday luuq halkaas oo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda ay ku biireen Sayid Aadan ayaa ciidamadaas ku tilmaamay kuwa aag badashay oo aysan ahayn kuwa Jubbaland ka goostay balse Axmed Madoobe taas waa uu diiday waxaana uu arkay qorshe isaga ka dhan ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waxa uu sharaxay kulankii Farmaajo iyo Uhuru dhaxmaray waxaana uu sheegay inay ku heshiiyeen in khilaafka la soo afjaro wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad ayaa waxa uu sharaxaad dheeri ah ka bixiyay is-afgaradkii dhaxmaray madaxweyne Farmaajo dhigiisa Uhuru Kenyatta labada madaxweyne ayaa galabnimadii Khamiista ku kulmay magaalada Nairobi oo ugu wada qayb galeen shir ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay
ambassador Cabad oo wareysi gaar ah siya VOA-da gaar ahaan laanta afka Soomaaliga ayaa tilmaamay in is-afgaradka aanay qayb ka ahayn kiiska badda oo ku adkaystay in maxkamadda ICJ ay xukmin doonto. mar wax laga weydiiyay hadalka soo yeeray dhigiisa Kenya oo ahaa in Farmaajo uu aqbalay in gal dacwadeedka lagu dhameeyo qaab labada dal ay wada ogol yihiin ayaa gebi ahaanba meesha uu ka saaray. gabadha wasiir waaye anna wasiir baan ahay, waxaan kuu sheegayaa wixii lagu wada hadlay. waxaa kaloo kuu sheegay madaxweynayaasha oo wasiirada ka muhiimsan waxay sheegeen ayuu yidhi. labada hogaamiye ayaa saxaafadda u sheegay inay isla qaateen soo celinta cilaaqaadka, qaaditaanka xayiraadda socdaalka tooska ee Muqdisho iyo Nairobi, iyo in kiiska badda uusan saameyn xiriirka labada dal. doorashadii Jubbaland ay dhawaan ka qabsoontay Kismaayo oo uu ku soo baxay madaxweyne Axmed Madoobe, balse xukuumadda diiday ee ka mid ah arrimaha keenay khilaafka. wasiir Cabad ayaa waxaa laga weydiiyay arrintan, waana uu ka gaabsaday inuu si gaar ah u dul istaago, balse waxa uu ku adkaystay madaxweynayaashu waxay ku heshiiyeen in la iska ilaabo khilaafkii hore u jiray. waxaan kuu sheegay in wixii khilaafaad jiray laga gudbo oo xaaladda lagu soo celiyo xiriirka caadiga ayuu tibaaxay. micnaheedu waxa weeye in wixii khilaaf uu jiro labada dal dhex maray in la iska ilaabo. wasiir Cabad ayaa hadalkiisa waxa uu ku soo xiray xiriirka caadi lagu soo celiyo, arrinta maxkamadana aysan si dhab ah u saameyn xiriirkeena. maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ taasoo hoos tagta qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in dhageysiga dacwadeedka ay bilowdo bisha Juun 2020 iyadoo kadib soo saari doonto xukun raacfaan la'aan ah. geesta kalena madaxweyne Farmaajo waxa uu Uhuru ku tilmaamay inaan kibir badnayn oo dhulka isdhiga. madaxweyne Farmaajo ayaa ammaan waxa uu kula dulacay dhigiisa Uhuru Kenyatta xilli Soomaaliya iyo Kenya ay dhex taalo xiisada badda oo ah maxkamadda cadaaladda adduunka mid ay xukmin doonto. hogaamiyaashan oo khamiistii ku kulmay hotel ku yaala Nairobi ayaa isla meel dhigay in kiiska badda uusan saameyn ku yeelan xiriirka laba geesoodka maadaama madmadow uu soo kala dhexgalay. hotelka ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay hooy uu ahaa Farmaajo, halkaas oo uu tagay shirka qaramada midoobay ee horumarinta dalkii dhalinyarada, kaasoo labada madaxweyne ay ka jeediyeen khudbado. ma cadda haddii kulankoodu uu ahaa mid lasii qorsheeyay ka hor shirka ama in laga shaqeeyay intuu Farmaajo ku sugnaa magaalada madaxda dalka Kenya. Uhuru Kenyatta ayaa hogaamiyaha dalka xeebta leh qaaradda ugu dheer Afrika waxa ugu mahadceliyeen oo aqbalay martiqaadkii ka soo qaybgalka shirweynaha. Farmaajo dhankiisa hadalka qaatay xilli ay saxaafadda la hadleen kadib kulanka waxa uu ku sifeeyay Uhuru shakhsi aan isla weyni badnayn. joogitaankayga halkan magaalada Nairobi aad ayaan ugu raaxaystaa ayuu ku bilaabay Farmaajo warfidyaanka u wajahay qaab furan. wuxuu intaas ku daray, waxaan kaaga mahadcelinayaa Kenyatta soo dhaweyntaada diiran, waxaan qirayaa in Uhuru yahay ninaan kibir badnayn oo dhulka isu dhigay inuu igu soo booqday hooygayga. madaxtooyada Kenya waxay faafisay in Farmaajo ogolaaday in xerbeegtada UN-ka galmaqalka ku xaliso qaab labada dal ay wada aqbalayaan. filo Soomaaliya waxay gebi ahaanba beenisay arrintaas. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale isla meel dhigay in dib loo soo celiyo duulimaadyada tooska ee Muqdisho iyo Nairobi iyo fiisaha Soomaalida ay ku qaadin jireen garoonka Nairobi. guddiyo ka kala socda labada dal ayaa ka wada shaqeynaya iyadoo toddobaadka soo aadan uu soo bixi doono go'aanka ugu dambeeya ee ku aadan in si rasmi ah loo qaaday xayiraadda duulimaadkii tooska. Kenyatta ayaa sheegay in Farmaajo la wadaagay isagoo laac ku qabo inay sii jirto xayiraadda, waxaana uu tibaaxay inuu ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan loola tacaali doono arrimaha haatan jira. Soomaaliya iyo Kenya ayaa wadaaga soodin 500 kiiloomitir ah, waxaana ka dhaxeeya xiriir ganacsi oo ay ka wada faa'iideysteen labada shacab, balse khatarta ugu badan waxay kaga imaanaysaa labada dal Al-Shabaab. waayahay wararka madaxweyne Farmaajo intaan ka bixin xildhibaan Mahad Salaad ayaa madaxweyne Farmaajo ugu baaqay inuu shacabka hor yimaado. xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay kulankii madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya. madaxweyne Farmaajo cid ka akhrisanaysa inuu u dhuunto ma jirto ee inta ummadda hor yimaado ha u sheego waxa uu Kenya kula heshiiyay. war-saxaafadeedka ka soo kala baxay madaxtooyada iyo wasaaradda arrimaha dibadda Kenya waxaa lagu sheegay in labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya Farmaajo iyo Uhuru ay ku heshiiyeen in arrinta dacwadda badda ay taalo maxkamadda cadaaladda adduunka lagu xalliyo hab labada dhinac ay wada ogol yihiin. taas micnaheedu yahay in dacwadda badda la soo celiyo kadibna wada hadal lagu xalliyo. haddaba waxaan aragnay mowqifka rasmiga ee dowladda Kenya. waxaan ka codsanaynaa madaxweyne Farmaajo inuu ummadda u hor yimaado, runtana uu ka sheego waxa dowladda Kenya uu kula heshiiyay. arrintaas waa arrin masiiri oo qaranimada Soomaaliya taabanaysa, mana jirto cid ka akhrisanaysa madaxweynaha inta qolka hoosta uu ka xirto in aamusnaan iyo dhuumasho ummadda uu ku siro. ugu dambeyntiina nin hubeysan ayaa weeraray iskuul ku yaala dalka Mareykanka. nin hubeysan ayaa waxa uu weeraray dugsi sare oo ku yaala magaalada Santa Clarita ee gobolka California, waxaana weerarkaas ku dhintay hal qof halka dhowr kalena ay ku dhaawacmeen.
iskuulka la weeraray oo lagu magacaabo Sawagis ayaa waxaa gaaray ciidamada ammaanka kuwa oo gacanta ku dhigay ninkii weerarka geystay isagoo dhaawaca. ninkan oo faahfaahin badan laga hayn waxa uu yahay ayaa lagu sheegay inuu ka soo jeedo qaaradda Asia isla markaana uu xidhnaa dhar madow xilligii weerarka uu geysanayay. wararka ayaa sheegaya in ciidamada amniga ninkaas ku hayaan goob caafimaad oo xaaladiisa caafimadeed wax loogu qabanayo. dadka ku waxyeeloway weerarkan waxaa loo qaaday cisbitaalka Henry Mayo. maamulkan waxay sheegeen in la soo gaarsiiyay dhaawacyada 4 qof inkastoo mid ka mid ah haweeney ahayd oo dhaawacii soo gaaray uu geeriyootay. sida laga soo xigtay maamulka cisbitaalka Henry Mayo 3 qof ee kale ee dhaawaca ayaa 2 ka mid ah xaaladooda ay garaab tahay halka midka saddexaad oo nin ahna ay xaaladiisa soo reynayso. wararka ayaa sheegaya in dadka wax ku noqday weerarkaas ay tiradooda ka badan karto inta hadda laga warqabo. weerarkaas ayaana walaac wax uu ku abuuray waalidiinta ardayda dhigata iskuulkaas. guud ahaan daawadayaal waan dhageyntaa warkii aad kala socoteen xulashada wararka waad ku mahadsantihiin sida wararkan aad la socotaan. nabadgelyo.